بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed jaac muuse waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafaheega joogto aniga iyo madaxweynaha Awdal State Professor Cabdisamed Ibrahim Nageeye iyo gudoomiyaha amba udub dhaxaadka Awdal State Cali Faarax Cabdilaahi waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id xaafadda Harow magaalada London shirka jaraa'id oo u jeedinayno cambaarayn xooggan jabhadda SNM ee gobolada waqooyi ka talisay jabhaddaasi waxay ku kacday wax bini'aadanimada islaamnimada soomaalinimada intaba anan ku qurux badnayn kuna fiicnayn kuna haboonayn sababta oo ah dad Soomaaliyeed oo jooga dalkoogii hooyo in la yiraahdo waa la masaafurinayaa waxana loo masaafurinayaa dalkoogii hooyo oone waa ayaan darinteeda leh waa waxaan geeyiga Soomaaliyeed hore uga dhicin waxay cadaynaysaa arrintaasi in ayna wali nidaamka ay iyaga ummadda Soomaaliyeed u taqaano dawladda inayna dawlad ahayn jabhad meeshaasi tahay dawlad waxa lagu yaqaanaa sharciyad iyo waxay leedahay kala dambeyn qofka bini'aadanka marka uu nidaam dawli saarayana waqti buu siiyaa aw ku diyaar galoobo oo arrimihiisa iyo hawlihiisa uu ku dhamaysto laakiin jabhad waxa lagu yaqaanaa inay boob iyo afduub wax ku samayso tabikal sidaa ay hadda u dhaqantay waxay cadaynayaan inay jabhaddii SNM ay dhulka ka talinayso sababta oo ah ilme iyo hooyadii ayay kala qaadeen oo wax bini'aadanka damiirkiisu ka xumaado oo ayaan darre inteeda la eg ah waxa loo dan leeyahayna dad baa dawlad u yaqaaneen nidaamkan jabhadda SNM wuxuu ku salaysan yahay 7 qodob oo ku dhisteen qaaxo markii ay jabhadda ahaayeen oo ahaa inay number 1 labada beelood ee darafyada una qabatayn xooga saaraan marka meesha loo soo socdaa amba qaybta labaad ee la wajihi doonay waa gobolka Awdal ummadda reer Awdal waxaan u sii digaynaa in ayna arrinta noocaasi ka suurta gelin gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa waxa kale oo aan u mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka Awdal State Maxamed Jaamac sidii qiimaha lahayd ee uga hadlay arrintan maanta ka hadlaynaa waxa weeye waa arrin aan adduunyada ka dhicin waa waxyaabaha ummad aan runtii meel u soconay ay samayso weeye waa cunsuriyad waxa weeye nin aanad dhulka ka xigin oo aad dhulka ka kaxaynaysa weeye ina biixi waa nin reer Jabuutiya bahdiisuna waa reer Itoobiya ninka reer Baydhabo ee Soomaaliga ah ee gobolada Soomaaliya ku jira ayaa ka xiga laascaanood haddii cid la masaafurinayo isaga ayaa haysta baasaboor Jabuutiya in isaga la masaafuriyahay waxa weeye laakiin waan ka xoog weynahay qoriga aniga haysta weeyaan ta aan marka maanta halkan taasi way dhacday Soomaaliyeed dhanna way ka hadashay adduunyada oo dhanna foolxumo weyn bay ku tahay dhulkan imika aan joognana anagu ka hadlayno dad aanan isku jiidsi ahayn baale oo asal Ilaahay ku dhaqay lama masaafurin karo ilaa sharciyad la soo mariyo bal hadda kii dhulkiisa joogay imagine xanuunka ay leedahay isagoo oo shaqo tagay oo shaqada ka yimid oo laga in loo soo weydaarta reerka oo caruurta laga kaxayo iyo islaantiiba meel lagu xareysto oo midba baabuur gaar la saaro oo halkee loo masaafurinaya dhulkii uu isagu kan masaafurinaya dhulkii uga dhawaaba loo masaafurinaya xagee loo masaafurinaya Baydhabo xagee loo masaafurinaya Puntland xagee loo masaafur waa dhul Soomaaliyeed halkee laga masaafurinaya waa laascaanood waxa weeye taa waxaan war anagu waan runtii aad baan uga soo horjeednaa laakiin waxaan halkan kaloon sheegaynaa waxa loo soo socdaa Awdal wax kasta waa laga xiray hatta badda waa laga xiray sayna baansiinkeera ka soo degay waa laga joojiyay waxay ku jirtaa cunaqabatayn weyn inta kaliya dadkaasi ku nool yihiin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaa u aragtay inay ummad Soomaaliyeed yihiin oo u tagta oo guryaha ka kareysata ummadda Soomaaliyeed baa u tagta oo macallimiintooda maxaan ku dhahay mishaar iyo siisa way arday bay noqdaan taaba waxa loo soo socdaa tala raba ma aha laascaanood way laascaanood meel Soomaaliyeed dhan ku jabtay oo joogta maaha Awdal bay Soomaaliyeed dhan ay u yaacday oo ay joogtaa halkaaba loo socdaa halkaan maxaa loo socdaa waa halkii ugu dambeysay guriga lagu qabanayay ummadda reer Awdal marka waxaan sheegaynaa war
haddii halkaa la idinku yimaado oo sharafkiinna idinkaa wakiilka ah dadkaasi oo dhulkiinna joogaane laydii soo weydaarto oo weliba dadkaa dhaqaalaad ku qabtaane aad ka ceshan weydaan maxaan ku dhaha baadilka iyo daalimiinta snmta ah dee idinkay idin taallaa waana foolxumo ninka had iyo jeer ku dhacay kuwa ugu waaweyn ee aan la ilaawi doonin weyn marka hadalkayga intaasaan ku soo koobaya waxaan leeyahay ummadda dadka snmta iyo dadka sida xun u fikiraya ee soomaalinimada ka soo horjeeda waxaan leeyahay ha dhacaan waxaan leeyahay in loo fiirsado weey waxaan leeyahay in ummadda soomaaliyeed lagala dagaalamo laga celiyo weey reer awdalla waxaan leeyahay inay isxoreeyaan oo dhulkooda iyagu xor u noqdaan weey dadka u martidaana ilaaliyaan weey oo iyagu ilaashadaan rahmatullaahi wabarakaatu waa la iiga horreeyey hadalka laakiin waxaad moodaa waxyaabaha maanta dhacaya ee ay samaynayaan maantana tan loo socdaa waxa weeye risiqi yaraaye dadkii idinku soo yaacay iskuulladiinniiyo ka faa'iidaysanayay deegaankaa iska nabadda laga burburin lahaa ee lagu tumin lahaa number 2 waa adiga ama diid ama do waxa ku leeyahay reer awdalo anoo afka awdal ku hadlaya halkii xuduntaydu ku aasan tahay anoo ka hadlaya waxaan idin leeyahay ka kaca gilgisha dhowr jeer horena waanu idin nidhi maantana waa finalkii taa lagu sameeyey walaalkii loo xiriyo soo qoysa adiguna baa leeyahay waa wax soo socda ina kaahin samayn doono ina biixi samayn doono haddaydan iska qaban gabiile ciyaar baa ahaydoo lagaa kiciya anigu in boorama lagaa kicinayo ayaan arkayaa gabiilay dilaa ku xigta niiks baana ka socda dilaa booramana niiks kaloo loo niikinaya ina biixi la leeyahay baan ka arkayaa haddaydan ka digtoonaan qorigiinnu ha dhaco ayaan leehay qorigiinnu meelaha ku dhaco waxa iska celiyo ha isdaafaco diyaar noqda marka la idinla yimaadana wax iska celiya waa haddaad dhiig leedihiin waa laydinka shubtay dhiig waan ogahay xuduntaydaa ku aasan aniga waan ogahay dadka maanta jooga dad dhiiggii laga shubtay inay yihiin waar ka kaca meesha wax iska celiya wax